Halkan waa Muqdisho, caasimadda ummadda Soomaaliyeed. Muqdisho waxa ay martigelisaa kumanaan dad ah oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada. Muqdisho waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qadiimsan Bariga Afrika. Waa magaalo xeebeed leh dekad iyo aeroboorti, haddana dadkeedu ay ku nool yihiin nolosha faqriga ka hooseysa. Muqdisho dhanka siyaasadda kuma lahan wax maqaam siyaasadeed ah. Waxa ay soo saartaa malaayiin dollar, haddana ma lahan biyo mareen. Waxay la daalaa dhacaysaa xakamaynta biyaha roobka. Waxaa ka dhaca tacadiyada ugu badan abid, sida qaraxyada, dilalka tooska ah, dhaca iyo kufsiga. Booliska kuma filna sugitaanka ammaanka magaalada. Macdallah iyaga ayaa gacan kunga bada. Saldhigyada waxaa lagu waardiyeeyaa caratuur. Habeenkii ma qabtaan adeegyada bulshada. Waxaa ku yaala suuqa ugu weyn Bariga Afrika, waana suuqa Bakaara ah. Dhanka ganacsiga waxaa ka jira horumar kala duwan, haba ugu badnaatee dhanka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, balse waxaa laga qaadaa canshuuro kala duwan, waxaana ka qaada dowladda iyo mucaaradka ka soo horjeeda. Kumana soo noqdaan bulshada canshuurtii laga qaaday. Ma lahan nidaam taraafik shaqeeya. Waxaa ka dhaca jaam waqtiga kaa luminaya. Wadooyinka magaalada badankoodu way xiran yihiin amni darro awgood. Magaaladu ma cabto biyo nadiif ah, mana lahan waxbarasho dowladeed oo bilaash ah marka laga reebo jaamacadda ummadda oo sanadihii dambe shaqaynaysay, haddana kuma filna bulshada. Muqdisho dadkeedu maahan kuwo isdhiibayo. Waxayna aaminsan yihiin in maalin laga gudbayo xaaladaha cakiran ee magaaladu haysto. Muqdisho waa caasimadda dhammaan dadka ku hadlo afka Soomaaliga. Waa magaalo cid walba oo Soomaali ah ay ku dareemayso inaysan cidna ka xigin. Dadka Muqdishaawiyiintu waa dad qalbi furan, soo dhaweyntooduna ay aad u badan tahay. Waa xarunta cilmiga, waxaana ku yaala jaamacadaha ugu badan ee dalka. Waxa ay martigelisaa kumanaan qaxooti ah oo ka soo barakaca dagaalada iyo abaaraha isdaba joogga ah ee sanad walba dhaca. Waxa ay leedahay goobaha ugu badan ee loo dalxiis tago, sida xeebaha iyo goobaha nasiinada, sida Daarusalaam, Beerta Nabadda, Beerta Banaadir iyo kuwo kaloo badan. Kumanaan ayaa ka soo qalin jabiyay jaamacadaha dalka, haddana ma helaan shaqooyinkii ay u baahnaayeen. Sidaasi ay tahay, magaalooyin badan oo Bariga Afrika ah ayay kaga horumar badan tahay dhanka isgaarsiinta, korontada iyo biyaha. Muqdisho isma dhiibin. Dadkoodu waxay isku dayayaan inaysan cudurdaar uga harin asaagooda. Muqdisho dadkeeda, xukuumad walba waxay ka codsadaan helidda xuquuq iyo maqaam siyaasadeed. Haddana waxaa jira siyaasiyiin ka soo horjeeda maqaam helidda Muqdisho, iyagoo ku andacoonayo inay tahay caasimadda ummadda Soomaaliyeed. Haddana ma jirto dastuur u diidayo inay hesho maqaamkeeda. Cumar Filish waa guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa caasimadda Muqdisho. Mashruucyo badan ayuu ka hirgeliyay oo ay ka mid yihiin dhismaha wadooyinka cusub, balse weli ma buuxiyaan baahiyaha ay qabto caasimadda ummadda Soomaaliyeed. Su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, Muqdisho ma la jaan qaadi doontaa horumarada caalamka, caasimadaha caalamka, iyo weliba Muqdisho ma heli doontaa xuquuq iyo maqaam siyaasadeed? Asalaamu calaykum.